nabi aadam calayhi salaam wiilashiisa qaabiil markii uu habiil dilay alla subxaana wa tacaala wuxuu usoo diray tuke si uu u tuso qaabka uu u duugi lahaa meydka walaalkiisa oo meelaha ku jijiiday taas waxay tusaale u tahay in alla subxaana wa tacaala cashirada uu inoo soo marsiinayo meel waliba oo suuragal ah laakiin kaliya waxaa cashir ka baran kara inta caqliga oo saaxiibka ah adigana ka mid tahay waana sababta amaanta kuugu hayo sheeko noloshaada wax badan saameyn ku yeelan doonta aniga ugu yeelatay maalin dhaxdaas anoo waqti lumiskayga caadiga iska wato oo TikTok dhex wareegaya waxa iga hor imaaday muuqaal xiiso leh saameyn weyn igu reebay waa sheeko gaaban oo dhex martay gabar iyo balanbaalis gabadhan cayaankii la dhahay dhan way ka cabsataaba adduunka ugu necabtaa qolma kula jiri karto laakiin maalmaha ka mid ah iyadoo banaanka iska wareegaysa waxay aragtay bahal dhulka yaalo way gadgadisay waxay tidhahdaa bahalkan waa dayacan yahay dhalinyaro u baahan yahay waa soo qaadatay se u soo waday guriga geysatay waxay kale kasii weysay caara miya xajiin miya bahal kale miya way fahmi weysay laakiin waxay ogaatay inaan naxariis u baahan yahay iyo daryeel gabadhii isbeddel ku dhacay cayayaanka cabsida badnaa ay ka qabtay daaqada ka baxday waxay aad ula riyaaqday nolosha cusub experience cusub waxyaabaha cusub ay tijaabinayso qof kale noqotay laakiin iyada xageeda markii la fiiriyo waxay tidhahdaa bahalkan bahalada kale ku duwan yahay xoogaa uu ii baahan yahay camal just daryeelkan asi waxa uu sameeyo سمين كلام waxay iska soo jirtay kan ana aqaano cayayaanka kale ma lamid ah uu ka duwan yahay alxaasil wax qurux badan dhacay maalmo kadib cayayaanka inta is huuriyay dub dhacsaday garba baxsaday waxa ka soo baxday balanbaalis weyn oo qurux badan adiga jacayl kolkoolin daryeel saaxiibtinimo xiriir adag kadib balanbaalisti ilmee dhashay no balanbaalista gabadha ilmaha mu dhalin ee balanbaalis kale u dhashay like balanbaalisaasha markay tarmaan arkino balanbaalis kale u dhashay gabadha nasaafilaysid ilmihii ayay korsatay waxay daawanaysay ilaa ay ka garba baxsadaan horteeda ku weynaadeen laakiin gabadha si kastee balanbaalista u jeclaatay mar waxaa imaatay ay ku qasbanaatay inay fasaxdo mar haddii aa wax jeceshahay weliba si saxa u jeceshahay waxa kaliya aa la rabtid waxaa waaye waxa ugu wanaagsan lagisa inta kuridda ma ku xiraysid dhalama ku xabisaysid ma jujuubaysid waa fasaxe balanbaalistii baalal adag oo xoogan markay yeelatay way bibtay like balanbaalis waa ma sii joogi karto gabadhan waxa ugu adkaay taasi ahayd inay fasaxdo taas kama dhigno gabadha inaysan balanbaalista jeclayn ee jacaylka wuxuu uga dhignaay in ay garato mararka qaarkood dadka iyo waxyaalaha aan jecelnahay waqtigooda wuu dhammaaday attachmentiga waxuu yahay dhammaanteen waxaa jeclaanaa oo ku dhignaa meelo waxyaalo dad xasuuso waa ku mintidnaa xidida la sameynaa waxaa dareemaynaa inay qayb nagamida ay yihiin ayna dhammaystirayaan si hadda u fiirisin xoogaa attachmentiga wax qurux badan oo ku jiro qalbigaaga inuu meel heblaayo ku xiran yahay ama qof hebel ku xiran yahay laakiin sidoo kale attachmentiga wuxuu leeyahay dhan mugdi ah maxaa yeelay mararka qaarkood attachmentiga ma noo horseedayo horumar iyo koriimo marmarka qaarkood waxaa aad ugu dhignaa anagoo ogeyn xanuunka ee nafteena ku hayso ama qofka ku dhiganahayba attachmentiga ciyaar ma aha neefta kugu celinaya marmarka qaarkood wuxuu ku dhigayaa meelo aad u qalmin laakiin waa isaga dhiganaana anagoo aaminsan wax walba inay isbedeli karaan jacaylka wax waliba inuu xalinaayo runta waxay tahay marmarka qaarkood ma xaliyo mararka qaarkood jacayl kaligiisa wax ma noolay karo taasna waxay kamid tahay runta ay adag tahay in la laqo okay ha ka hadalna waxa ku fikiroosid xiriirada jacaylka iyo qalbi jabka dhammaanteena soo wada marnay qof arkay waa jeclaanay uu ka dhaxbaxaya xiriirada sameynaysiin waa isfahmaysiin nolosha farxadda oo ku sii cid ku sii karta ma lahan qofkaaga ka dhigatay wax jabi kara xiriirkiina ma lahan qofka marka aad isugu dhawaatina waxa arkaysaa xaaladda isbedeshay xididka dhanaa waa mirqaaya ama ka daran suna isku bedelay waxa arkaysaa qofkaaga sidoo hore ahayn aad u jeed ka sii jeesanayo kadib waa xariilaad garanaysaa jacaylkaas soo mar ahay ma ahan maybe waxa jirta qayaano dhabarka toogasho aamusnaan laakiin adiga wali waa ku dhigan tahay wali waa jeceshahay waa fasix laadahay waxa rabta in aamintid in xaaladaha fiicnaahayaan wax waliba xali kartid laakiin madaxaaga gadaashiis waxa ka ogtahay taas inaysan dhiceenin xanuunkana meeshan ka bilaabana you know si u fududahay inaad ku dhahdid qof saaxiib ah iska fasax laakiin xiriirka ma ku dhibno iska fasax qofkaana nafta ku keenay ka tag iska fasax laakiin adi marka xiriirka ku jirtid way ka adag tahay marka adiga aad tahay qofka wax fasaxayo gaar ahaan marka qof wadnahaaga oo dhan ku jeclaatay iyagana aysan ku jeclaan si lamid ah ama ay ku jecel yihiin laakiin just ma dhici kartiin okay maxay tahay rafaadka uu leeyahay marka fasaxitaanka ina iska fasaxi kartid macnaheedu ma aha inaad waligaa jeclaanin in xasuusaheedan ee meesha ka tirmaya ma ahan in farxadii aad dareemaysa markii alla joogtay iyo dareen walba ah haysatay inay daaqada ka baxaysa ma aha laakiin marmarka qaarkood jecel kaligiis wax ma ka shaqaysanayo qof waa u jeclaan kartaa si zaa'id ah laakiin mar hadduusan la jaanqaadaynin noloshaada waxyaabaha u baahan tahay meesha u socotid qofka aad tahay qofka noqonaysidba oo ku qasbanta inaad fasaxdid
واتنا حنونك ماشي أو كبلاونايو ما أهن جعلك إنه طاقتك بحي ودماذي لكن فهمت تقفك إنسان وحب إسوكين درسانين أو إسكو قرنين ماشي أو أذك adiga wax kasta ma ka shaqaysan kartid wax already kala daadahayna isku hin kartid mar walba si kasta oo adag tahay laakiin waxa ku sheegaya marmarka qaarkood jacaylka inuu ka dhigan yahay inaad fasaxdo ma ahan inaadan jeclayn ee waxa aad jeceshahay in ku filan inaad xorriyad siisid nafsadaada iyo toodaba okay kan siiday ka siiday siideyntan la sheegayo maxay u tahay laga maarmaan inaad siidaysid macnaheedu ma ahan inuu jacaylka istaagayo ma ahan waxa idinka dhaxeeyay inaysan ahayn rumey kaliya waa faham nolosha inay marmarka qaarkood jihooyin kala duwan u socoto marba luuqi kula gali baash taasna okay way nolosha waa luuqyo badan tahay dhamaad badan ay leedahay jabtara badan oo xirma ay leedahay ee si kasta ugu baahanahay inaan ku dhaganaana tagtadii hore waxaa loo baahan yahay inaan space u baneeno mustaqbalka si aan u helno experience cusub nolol cusub u tijaabino waxyaabo cusub dad cusub taas maxaa ka qurxanba in bogaanan aa u banaysid jabtar cusub inaad ku qortid jabtar ka kooban kabasho koriimo nabad iyo jacayl ka gedisan kii hore okay salo hela marka isnabadgeliyeen iyo hor u socod waa kabanaysaa waxaa qaadanay waqti kugu filan aa ugu tiiraanyootid wixii kaa lumay waqtigaas ugu faa'iidaysanaysaa fikir tayo leh dib u milicsi iyo inaad fahantid dhammaadka inuusan ahayn burburkaaga adi bini'aadan la tahay waxaa u baahan tahay nolol ka maran wixii tegey nolol waxaa u baahan tahay possibility badan leh fursado badan oo ka hor yaalaan waqtiga saxda markii la gaarana jacaylka isaga ku helaya meeshuu ka helaba jacayl ka duwan kii hore mid loogu talagalay qofka hadda aad tahay ma aan qofkii aa ahayd in wax la fasax way adag tahay weligeedna way adkaa doontaa laakiin xasuusnow wax weligiis ma jiro wax waliba xumaan iyo samaan way dhamaahayaan waxyaalaha qaarkood way imaahayaan way baxayaan kaliya wax noo baraan noo qorqoraan noo qaabayaan noo koriyaan markii aad fasaxdidna jacaylka muusan ka dhiman kaliya waxa boos u banaynaysaa wax ka wanaagsan marmarka qaar waxyaabaha uga adag asamee karna waxay tahay in shay u jeclaano in ku filan in aan fasaxi karno in aan u ogolaa karno nolol kale inuu arko waxa uu rabo inuu raadiyo balanbaalista inaan banaanka u day karno laakiin waa waxa ugu awoodda badan ee u sameyn karna nafsadeena iyo toodaba xasuusnow wax weligiis abid jiri doona malahan wax alaal wixii ku qoran ee lagu talagalayna si kasta u soo biibito balanbaalistan oo kugu soo noqonaysa run ahaantii ma filayno muuqaal daqiiqadiisa u kooban yihiin in halaan cashar kala la bixi doono gaar ahaan balanbaalis wax ku saabsan laakiin runta isku sheegno dhammaanteena balanbaalis ay jecelnahay dhalo ku haysanaa balanbaalisna qadka ku xidhmo dhalada ma lagu talagalin banaankaas yarta inuu ku xiroodo waa jecelnahay yes laakiin neef u ogolaaw fasax ha ka fikirin taada kaliya balanbaalis ha ka fikir ma jeclido siday hano laato balanbaalis haddii dhaladaas aad ku sii haysid adina waa iska wasaqaysa dhalada wax ma ku shuban kartid balanbaalis neefta ku dhigaysa ku dhimanaysa haddii meesha ay ku dhimatana balanbaalista waa dhibtay ma ku jeclo adina waxa jeclaatay ma helaysid laakiin marka u fasaxda balanbaalista wixii ay rabtay ee jecleed hawada inay qaadato oo waxay soo carfiso ee ku soo laabato jacaylka waxa ogolaanaysaa marka space ku filan xiriirkiina inuu ku koro yes waa ogahay balanbaalis ma ka hadlooyi laakiin qofka gacanta ku haysa siday ka fooq gacanta isxanuujinaysaa fiir dhiiga ka socdo silsilad adag waay waa ku gubeysaa waa ku jiraysaa please ka fooq qofka waa ka sii jiidaya asina xanuuna ku haysaa adina xanuuna isku haysaa please neefsana faaleedahay haddii naftaada tooda aad jeceshahna please iyaga u nax sandan ugu jirto so silsilada siday iska fasax gacanta ku jajeexan waqti si ha kabato si marka xigta ee qof gacantaada u qabto aa u dareentid qaarkiina waxay rabaa inay arkaan muuqaalka yara ee TikTok balanbaalista ee kiciyay mawduucan inaan ka hadalno dhamaadka muuqaalkan idin soo dhigaya haddii inta aan soo gaartay muuqaalka waxa kaaga mahadcelinaya daawashadaada waxa rajeynaa inaan wax kala dhex baxday hal ama labo haddii aad aragti qabtid ama wax su'aal ah qaybta commentiga hoos noogu dhaaf si aan wax kaaga dheefsano sidoo kale haddii ay jiraan mawduucyo aad jeclaan lahayd in aan soo hadal qaado please commentiga hoos noogu reeb inaan kala faa'iidaysano meeshaan u joognaa halkan waxaa noogu eg xalqadii koowaad ee taxanayn toddobaadlaha ahay oon ugu magac daray ma ogid ilaa aa ogaatid toddobaad waliba waxaa miiska soo saari doonaa mawduuc ka dhex guuxaya maskaxda mid walba oo naga mid ah xalqada koowaad waxaan isla meel dhiganay in aan u baahannahay mararka qaarkood inaan wax fasaxno maxay ka dhigan tahay iyo sidee u fasixi karnaa xalqada xigta maxay ku saabsan tahay waa inoo jimcaha kale hal mar aan ku xasuusiyo haddii channelka aad ku cusub tahay si ay kuu soo gaar muuqaaladeeda subscribe ka taabo tan iyo kan xiga bye bye 2 years ago I found this giant moth sitting on my driveway. I had a huge fear of bugs back then, so seeing this giant tarantula with wings scared the hell out of me. Now, I don't know what got into me that day, but when she started crawling toward me, I just decided to let my hand out and let her do her thing. But I had no idea what I was about to get myself into. The next thing I knew, I was raising her babies. Tiny little green caterpillars that were growing by the day. I would feed them, clean their containers, throw away their old leaves, replace them with new leaves. This was the closest I could get to being a mother.
I can't tell you the things I was feeling when they started building their cocoons. I was worried that they weren't gonna make it. But then one day, I saw one hatch. And then the one after that, and the one after that. I saw every single one of them hatch. And when it was time for them to take flight, I let them go. I was there from the very beginning and I got to watch it end. And I loved it so much that I decided to start raising more. And I've been doing it ever since.